Salman Rushdie qoraaga Britishka ah ee qaar ka mid ah qoraaladiisa ay horseedeen in bartilmaameed dil ah uu u noqdo dalalka Islaamka gaar ahaan dalka Iran isla markaana dhuumasho ku noolaa ayaa lagu weeraray masrax ku yaala galbeedka New York oo hadal uu ka jeedinayay. Qoraagan ayaa waxaa lagu eedeeyay in uu qoray buuggii lagu magacaabi jiray aayadihii shaydaanka kaasi oo uu kaga jeeday Quraanka Kariimka. waxaana dowlado badan oo muslim ah ee ka dhacay xilligii buuggan uu qoray dibadbaxyo looga soo horjeedo. muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya dad ku kala cararaya inay caawiyaan Salmaan oo ku sugnaa macadka lagu magacaabo Chowkhanta. booliska ayaa muujinaya waxayna xaqiijiyeen in qoraagan 75 jirka ah laga tooriyay qoorta balse ma aysan bixin wax faahfaahin ah oo la xiriira. wariye ka tirsan wakaaladda wararka AB oo ku sugnaa goobtan ayaa xaqiijiyay in ninka weerarka Salman Rushdie qaaday uu ugu yaraan 10 ilaa 25 jeer uu tooriyay kaga dhuftay qeybaha sare ee jirkiisa oo qoortu ay qeyb ka tahay. haddaba daawadayaal waxa isweydiinaysaan waa kuma qoraagan. muddo ka badan 50 sano oo uu ku jiray suugaanta, Salman Rushdie kuma cusbo inuu la kulmo hanjabaado kadib shaqadiisa. qoraagan oo lagu magacaabo Salman waxa uu ka mid ahaa qoraayaasha ugu caansan Britain, waxa uuna sanadkii 1981 qoray buuggiisii lagu magacaabi jiray Midnight Children ee uu abaalmarin ku helay. sanadkii 1988 waxa uu soo bandhigay buuggiisii afraad oo micnaheedu uu ahaa aayadaha shaydaanka. magaca buuggaasi buuggan ayaa dhaliyay muranka ugu badan waxaana ka dhashay caro caalami ah oo horey aan loo arag. muslimiin badan ayaa ka carooday buugga Salman Rushdie waxayna sheegeen in buuggan uu aflagaadeynayay suubanaheena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Salman waxaa loogu hanjabay dil waxayna hanjabaadaasi ku khasabtay inuu galo dhuumaaleysi. dowladda Britain ayaa si weyn u ilaalinaysay ammaanka Salman. Iran oo ahayd dowlad islaami ah waxay xilligaasi xiriirka u jartay dowladda UK iyadoo ka caraysneyd buugga Salman. hogaamiyihii Iran ee xilligaasi Ayatollah Khomeini ayaa waxa uu ka soo saaray fadwo uu ku baaqay in la dilo Salman sanadkii 1989 sanad kadib markii buugga la daabacay. ha yeeshee reer galbeedka qoraayaasha iyo waxgaradka waxay dhaleeceeyeen halista ka imanaysa xorriyadda hadalka ee ka dhalatay falcelinta qallafsan ee buuggan ee dadweynaha muslimiinta ah ay ka bixiyeen. waxaana bulshada muslimiinta ahi xilligaasi ay ku dooday in ay u haystaan ogolaanshiyo in ay difaacaan waxay aaminsan yihiin, taasi oo ay kala jeedeen islaamnimadooda. Salman Rushdie waxa uu ku dhashay magaalada Mumbai ee dalka Hindiya 2 sano ka hor xorriyadda Hindiya oo uu gumaysan jiray Ingiriiska. markii 14 jir waxa uu tagay Ingiriiska wuxuu iskuul ka galay magaalada Rugby. markii dambena waxa uu shahaadada jaamacadda koowaad ee culuumta taariikhda ka qaatay jaamacadda King's College oo ku taala Cambridge. waxa uu helay dhalashada Britain. waxa uu ka baxay diinta Islaamka wuxuuna muddo kooban ahaa majaajiliste. markii dambena waxa uu xayeysiin jiray isagoo qoraa ah. Salman muddo 5 sano ah ayay ku qaadatay inuu qoro buuggiisa labaad ee la magac baxay Midnight Children sanadkii 1981. abaalmarin ayuu ku helay buuggan waxaana uu u iibiyay nus milyan kaasi oo lagu daabacay luqado kala duwan. September 1988 waxa uu qoray buuggiisa muslimiinta ka careysiiyay ee aayadaha shaydaanka. waxaana muslimiintu buuggaasi ay u arkeen in lagu aflagaadeeyay diinta Islaamka si gaar ah Nabi Maxamed. Hindiya ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay ee mamnuuca buuggaasi waxaana ku xigay Pakistan iyo dalal Islaam ah iyo sidoo kale dalal kale oo ay ka mid tahay Koonfur Afrika. buuggan wuxuu helay aqoonsi balse waxa sii xoogaysay dibadbaxyada looga soo horjeeday qoraaga buuggan. muslimiin badan ayaa buuggiisa waxay u arkayeen aflagaado ka dhan ah diinta Islaamka. bishii January 1989 muslimiintii ku sugnayd magaalada Bradford ee dalka UK waxay gubeen buugga halka wakaaladda wararka ee lagu magacaabi jiray WH Smith ay joojisay inay soo bandhigto buugga. Rushdie wuxuu diiday in wax aflagaado uu u geystay diinta Islaamka. magaaladii ku dhashay ee Salman 12 qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay halkaasi waxaana dhagaxaan lagu weeraray safaaradda UK ee Iran. waxaana $3 milyan dul dhigay madaxa Salman waa haddii cidi ay keento ama ay disho. xilligaasi muslimiinta qaar ee UK waxay ku baaqeen in arrintani Salman ay dhexdhexaad ka noqdaan halka kuwa kalena ay taageereen hadalka hogaamiyihii Iran Ayatollah. wadamada Faransiiska, Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka waxay cambaareeyeen hanjabaada dil ee ka dhan ah Rushdie. tani wixii xilligaasi ka dambeeyay Rushdie iyo xaaskiisa ayaa dhuumaaleysi ku jiray iyadoo si weyn loo ilaalinayay amnigooda.
Salmaan Rushdie kaliya ma ahayn cida dilka loogu hanjabay buuggiisa dartii iyo aflagaadada uu geysanayo diinta Islaamka. Nin u dhashay Japan oo la yiraahdo Hitoshi Igarashi oo u tarjumay buugga aayadaha shaydaanka dhowr jeer ayaa la tooreeyay, waxaana uu ku dhintay afaafka hore ee jaamacad ee ku taala ee dalkaasi Japan. Isla bishaasi nin u dhashay Talyaaniga oo la oran jiray Ettore Caballero ayaa toore lagu weeraray xilli uu ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala Milan, inkastoo weerarkaasi uu ka badbaaday. William Negrad oo isna buuggiisa ku tarjumay luqadda Norway ayaa lagu toogtay gurigiisa oo ku yaala Oslo, inkastoo uusan ku dhiman weerarkaasi. Rushdie waxa uu qoray buugaag dhowr ah oo ay ka mid yihiin buug lagu magacaabo Heron iyo buug kale oo lagu magacaabo Sea of Mysterious. Salmaan wuxuu guursaday 4 xaas, waxa uu dhalay 2 carruur ah. Haatan waxa uu ku nool yahay dalka Mareykanka, waxaana sanadkii 2007 abaalmarin siisay boqoradda guusha kadib markii uu ka gaaray suugaanta, ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ay soo saartay Britain. Tooreyntiisa ayaa waxaa la sheegay in boolisku ay nin u qabteen. Booliska gobolka New York ee dalka Mareykanka ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan Hadi Matar oo 24 jir lagu eedeeyay inuu toorey la dhacay qoraaga Salmaan Rushdie. Booliska oo shir jireed qabtay waxa ay sheegeen in Hadi uu sii diyaarsaday kaar uu ku galo goobta, falkiisana uu muuqday mid uu soo maleegay. Lama sheegin sababta loo weeraray Salmaan, ha yeeshee waxaa kiiska goor dambe oo shalay ahayd ku soo biiray hay'adda FBI-da Mareykanka. Salmaan oo qoorta iyo qaybo kale oo jirkiisa uu dhaawac ka soo gaaray ayaa xaaladiisa lagula tacaalayaa cisbitaal ku yaala gobolkaasi, waxaana lagu sameeyay qalliin. Goobjoogayaal ayaa sheegay in la tuhunsanaha oo ku hubeysan toorey uu Salmaan ugu tagay masraxa oo khudbad ka jeedinayay isagoo kaga yimid qaybta gadaale ee dhabarkiisa ku aadan, waxaana dhowr jeer uu toorey ku dhuftay iyada oo dadka ay arrinkaasi la fajaceen. Waxaa la yaab noqotay in 15 jeer lagu dhuftay toorey ninkan oo dad waardiye ah ay ku sugnaayeen goobta. Arrinkaasi waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa in kooxda qabatay ama barnaamijka qabatay ay ahayd mid aan u diyaarsanayn sugidda ammaanka ninkan oo bartilmaameed inuu ahaa ay caddeyd. Inuu ka soo baxo dhuumaaleysigiisa waa lagu eedeeyay isaga laftirkiisa. Inkasta oo Salmaan uu ka badbaaday hanjabaado hore, ayaa haddana buugtaasi darteed waxaa loo dilay turjumaankii Japan u dhashay sida aan hore u sheegnay, iyo sidoo kale iyadoo dhaawac loo geystay ninkii Norwejianka ahaa iyo kii Talyaaniga ahaa. Salmaan ayaa muddo 10 sano ku noolaa dhuumasho, waxaana lagu eedeeyay ama la adkeeyay ammaanka goobta uu deganaa ee dalka Britain iyo sidoo kale goobta uu ka deganaa Mareykanka. Salmaan haatan waa la tacaalayaa, waxaana diyaarad nuuca qumaatiga u kacay helicopter-ka ay soo gaartay goobta ee lagu dhaawacay iyada oo loola cararay cisbitaalka oo haatan lagu daweynayo. Waxaa baraha bulshada muslimiinta oo ugu badan Twitter-ka la isla dhexmarayay fariimo la isugu hambalyeeyo in ninkani la bartilmaameedsaday maadaama uu u gafay cidiga iyo sharafka iyo karaamada suubanaheena Maxamed sallallahu alayhi wasallam, isagoo sidoo kale meel ka dhac balaaran u geystay suubanaha oo taasi muslimiintu ay u tahay khadcas. Sidoo kale waxa uu beeniyay ama uu buuq ku soo saaray uu ku beeninayo ama uu ku aflagaadeynayo risaalada uu soo dhiibay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala.